waxa wanaagsan carruurta yaryar inaan la daawadsiinin filimada ama aan loo ogolaanin inay daawadaan cunfiga iyo gacanka hadalka iyo dilka iyo balaayooyinkaasi waxyaabaha iscunaya iyo cabsida in aad looga ilaaliyo wanaagsan iyo filimada ka hadla faldambiyada yani jariimooyinka dalka Masar waxaa ka dhacday 16 bishan qiso aad u xanuun badan dalkaas oo dhan gilgishay yani caalamka oo dhan uu ka hadlay khaasatan carabta ay aad uga hadlayaan cunug yar oo 13 sano jira oo la yiraahdo Yusuf baa wuxuu saaxiib la ahaa wiil yar oo isaguna 12 jira cunugaar Karim baa la yiraahdaa magaciisa Maxamed baa la yiraahdaa qofba waxa uu sheegayaa almuhim wiilka yar 13 sano jira waxa la yiraahdaa Yusuf wiilka yar maalin baa waxa maqnaa qoyskooda oo maalinka bisha 16 mareysay qoyskoodu markay meel aadeen yani ma garanay waxa qoyska ka reebay kaligii baa guriga joogay wuxuu wacay marka cunugii saaxiibkii ahaa 12 jirka wuxuu yiri guriga jooga kaligay weeyaan qoyskay way maqan yihiin imo waxbaan isla daawanayna gurigaygan ku ciyaarayna wiilkii saaxiibkii ahaa u yimid saaxiibkii markuu yimid waxbuu waxa kaga dhuftay marka bir kadibna wuxuu ku celceliyay mindi ilaa intuu ka dhimanay cunugii wuxuu soo qaaday minshaarta korontada ku shaqeysa cunugii yaraamiidkiisii uba jarjarayba waxa wax jarjaraya ee wax dilaya waa ilmo yar 13 sano jira cunugii yara markuu dilay uu nafta dhaafiyay hilibkii buu qaaday marka jirkii oo uu kala googooyay uu qayb ka kala dhigay wuxuu ku soo tooray meel moola oo xaafadooda u dhow oo cidla ah yani meel mool gadaashiis ah moolka gadaashiisa meel oo cidla uu ku soo tooray meeshii wax ka soo urayay waxba la arkay meedkii meeshii baa laga soo qaaday waa la isku soo aruuriyay inuu ilmo yar yahay baa la ogaaday adu kaamirooyinka eeriyada ku xidhnay waxba la daba raacay cunugii baa la soo qabtay marka yaraay 13 sano jiray cunuga yar marka waxa la sheegayaa hadda baa la soo qabtay yani waa laba bari ka hor xilliga jariimadu ay dhacayso inuu ahaa caruurta aadka u jecel waxyaabaha isdilaya iyo dadkan la yiraahdo filmaanta ka hadlaya dilaaga ma aragtay taxanaha ee la yiraahdo qaatilka mutasalsalka qofka intuu wax dilo ilaa inta la soo qabanayo yani dadka dila dadka googooya dadka uu dilayo qariya waxyaalaha cabsida waxa iscunaya waxyaabahaas cunuga yarkii waxa la jeclaa oo u daawan jiray wixii sidii uu daawanayay unbuu isiriday waxaan la dilayo ma tijaabisid filimkii uu daawanayay buu waaqac ku dabaqayba ilmaha yar marka cunugna ma isku xanaaqeen oo muran iyo khilaaf baa dhaxmaray ma go'aan buu iska gaaray isagoo gurigiisa jooga inuu wax dilo saaxiibkii uu miyuu wacday wali cid ka sheekeyn kartaa ma jirto laakiin ilmaha yar waxa la isaga wada makhraati furay oo la sheegayaa inuu aad u daawan jiray filimada cabsida iyo dilka iyo waxyaalahaas iyo jariimooyinka cunugeer wixii sidii u daawan jiray buu go'aansaday waxaan inuu kaga rumeeyo waxaan filim ahaanta uu ku daawanayo inuu isaguna si run ah u sameeyo waxa wanaagsan marka ilmaha inta yar yihiin 15 sano inay ka yar yihiin ilaa 16 sano intay ka yar yihiin 17 sano xataa intay ka yar yihiin in aad loola socdo bal waxyaabaha ay daawanayaan baa wanaagsan hadii kale waxaan waa ilmo aqligiisu kuma filna waxaanu daawanayo isla tijaabi cunugani waxbuu daawanay wuu tijaabiyay wixii cunug yar oo kale saaxiibkii intuu guriga ugu yeedhay uu dilay wuu jarjaray gabigiisiiba minshaartan meeshuu ka keenay laakiin anu ku wareersanay minshaarta korontada ku shaqeynayso ku jarjaray baa la cunuga yarka meydkiisa minshaarta marka gurigooda sii taalay mise isaga meel kale ka soo qaatay yani cunuga hadda baa la soo qabtay faahfaahintu gadaal bay ka soo bixi doontaa dabcan waa la weydiin doonaa sababta uu cunuga yar saaxiibkii u dilay laakiin cunugan yar wax uu daawanayay inuu rabay inuu kaga rumeeyo